waxaa maanta la soo gabagabeeyay bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ay lahayd qabanqaabadeeda shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa inta ay socotay waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay dowladda Soomaaliya sida Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Dr. Saalax Axmed Jaamac, wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabduqaadir, gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo marti sharaf kale oo ka socotay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Bashiir Cabdullaahi Sahl oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Hormuud ahna xubin ka tirsan golaha sare ee shirkadda oo daafuray bandhigga maalinta labaad ayaa ka sheekeeyay duruufihii adkaa ee uu soo maray isticmaalka adeega EVC Plus kaas oo shacabka Soomaaliyeed u fududeeyay noloshooda wax badan ka bedelay sida looga tukaamaysto Soomaaliya. maadaas Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow waan jeclahay inaan halka ammaan uga jeediyo ammaan iyo bogaadin aan uga jeediyo asaasayaashii iyo dadkii iska lahaa fikradda shirkaddan weyn lagu aasaasay oo maanta sabab u noqday kumanaan kun oo qof inay ka shaqaynayaan adeegyo aad u badan oo dadku ay baahi u qabeen ay bixinayaan. waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago dhacdooyin muuqaalkooda markii la cabiro aad dareemi kartaan waxa la soo maray. maalan waxaan xasuusanahay maalin 30 qof oo keliya xaflad loogu sameeyey in ay qaateen ama ay ka mid noqdeen macaamiisha shirkadda. 30 qof ayaa xaflad loo sameeyey oo ah 30kii qof oo mobile Soomaaliya ugu horreeyay ka qaatay. maalinkaas ayaan soo maray bahda waxbarashada oo bandhigga lagu abaalmariyay ayaa kaalintii ka soo qaateen horumarka waddanka ayaa dhankooda u mahad celiyay Hormuud Telecom oo 20 sano jirsatay. marka ugu horeysa waxaan u hambaleynayaa shirkadda Hormuud Telecom oo 20 jirsatay. Hormuud waxyaabaha lagu xasuusan karo oo aniga aad iyo aad aan u taageersanahay saaxiibadayna aan filayo inay ugu raacsan yihiin waxaa ka mid ah la qabsiga iyo horumarinta tiknoolajiyada. sababtoo ah adduunyada maanta aan ku noolnahay waxay noqotay adduunyo u jihaysatay xaggaasi tiknoolajiyada. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo badan inay Hormuud iyo hay-adaha Hormuud group ku abtirsadooda guulo waaweyn. saaxiibadayna aad iyo aad u mahadsan yihiin. runtii waddankan waa loo soo wada halgamay. waxaan rajaynaynaa in meel weyn la sii gaarsiin karo haddii sidan loo sii dadaalo. waa mahadsantihiin. marka hore waxaan u hambalyeynayaa shirkadda Hormuud wax badan soo qabatay, wax badan soo tartay dalka, howlo badan ku guuleysatay oo laga faa'iideysan karo. marka kalena wax badan oo ay soo qabatay oo ay ka mid tahay waxyaabihii hadda laga sheekeynayay xawaaladii EVC-dii bangigii waxaasoo dhan runtii horumar dalka u keeno la qabtay ay tahay. marka koowaad waa u hambalyeynayaa iyo marka labaad iyo marka saddexaadba. laakiin waxaan rabaa inaan sheego shirkadaha ganacsiga ahee naajixiinta noqday Soomaaliya, hay-adaha tacliinta ka shaqeeya ee naajixiin noqdan Soomaaliya, waxaa marka shirkadda la yiraahdo Hormuud ganacsiga ay samaysay oo 12,000 oo muxuu ahaa ka qaybgalayaasheeda oo shareholders ah marka laga soo tago 35,000 oo shaqaalaha marka laga soo tago waa shirkadda kali ah oo mas'uuliyad bulshadeed qaadatay oo samaysa Hormuud Foundation oo ka shaqeysa arrimaha samafalka, tacliinta, caafimaadka. Dr. Fartuun Shariif agaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir oo ka hadashay bandhigga guuleystayaasha Soomaaliyeed ayaa waxay sheegtay inaysan hadal ku cabiri karin hiilada ay Hormuud ka siisay bahda caafimaadka si gaar ah isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. sidaad la socotaan adeega caafimaadka dalka oo sanadihii la soo dhaafay dardar iyo maxay ahayd horumarin aad ah laga sameynayay. waxaa garab iyo hiil iyo hoo u ahaa shirkadda Hormuud Telecom oo aan isleeyahay hadday Hormuud garab istaagi lahayn adeegyada isbitaalka
iyo adeegyada isbitaalada babliga laga bixiyo horumarada maanta isbitaalada babliga ay gaareen way adkaan lahayd siday hortiina ka muuqata runtii mar kelmado kuma qeexi karo garab istaaga iyo hiilada Hormuud ee isbitaalada dalka si gaar ah isbitaalka hooyada iyo dhalaanka isbitaalka maskiin kalkaalaha isbitaalka uhiiliyaha hooyada isbitaalka uhiiliyaha carruurta Soomaaliyeed ee isbitaalka Banaadir oo runtii markii ay dawladda la wareegtay si degdeg ah waxa ku soo gaaray shirkadda Hormuud oo runtii maxaa qabtiin iyo maxaa idin socda nagu tiri runtii abaal bad ah iyo abaal badanba waan u haynaa dadkooda ay gashteen gudoomiyaha shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya mudane Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa isla goobta ku balan qaaday inay shirkadda Hormuud bixin doonto muddo 1 sano iyo bar shidaal ku baxay isbitaalka hooyada dhalaanka ee Banaadir iyo inay centralize gareyn doonaan oxygen-ka isbitaalka fartuun waxaan u ballan qaadaynaa 1 sano ilaahay idankiis shidaalka matoorka inuu socdo hal sano shidaalka matoorka inuu socdo Cabdullaahi Foundation oo salaam Hormuud Foundation ka ah gudoomiyana aad iyo aad baad aan maaragtay kaaga mahad celinaynaa shirkaddan aad u sharaftay in fartuun ay tiraahdo wasiirkeygii caafimaadka waxaa noqday Cabdullaahi oo ku soo ooyaa farxaday noo tahay waxaan kaloo rabnaa inaan kugu bishaarayna fartuun isbitaalkii aan dhisnay oo shirkaddu dhistay ee dhallaanka in oxygen-ka centralize laga dhigayo oo ay socoto waxaa kale oo runtii aad ugu farxay oo Cabdullaahi uu hadda igu wargeliyey ocupatoriska qalbka dhinaca inuu yimid loona dhameystirayo wasiirka waxbarashada hay'adda tacliinta sare ee Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa sidoo kale ka hadlay bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed geed kasta oo Soomaaliya ah oo ah loos istaagaba network guule taa waxaa suura geliyay oo ammaanteeda iskale waxgaradka Soomaaliyeed ay Hormuudka u yihiin sharikadda Hormuud marka waxay daliil u tahay Hormuud waxay daliil u tahay kartida qofka Soomaaliyeed ee caqliga leh ee maskaxda leh ee ka fiyow cudurrada dalka iyo dadka lagu burburinayo ka fiyow Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Soomaaliya Dr. Saalax Axmed Jaamac oo hadal ka jeediyay gabagabada bandhiga guuleystayaasha Soomaaliyeed ayaa sheegay in shirkadda Hormuud oo go'aansatay inaysan kaligeed dabaaldegin ee ay abaalmariso dadkii wax u soo qabtay bulshada waxayna shirkaddu dalka u tahay Hormuud sida aan ugu faanayno wiilasha 17 jirada ee dalka guusha u keenay ayaan ugu faanaynaa shirkadda Hormuud maanta waa maalin gaar ah oo ka duwan maalmaha kale waa maalin aynu weynayno oo aynu u mahad celinayno oo aynu ictiraafayno dadkii kambaniyadii iyo shirkadihii Soomaaliyeed ee u soo dhabar adeegay una soo adeegay dadkan Soomaaliyeed madashanna waxa saas inay tahay inoogu dhigay shirkadda Hormuud oo 20 jirsatay oo sida magaceeda ku cad Hormuud u ah hal abuurka iyo dhabar adayga iyo wax soo saarka dadka Soomaaliyeed walaalayaal sida aynu wada ogsoonahay markii qarankii burburay wasiir Faaraxna soo ka waramayay waxay noqotay maadaama hanaankii bariga jiri jiray iyo dawladdii markaa jirta ay ahayd dawlad wax walba gacanta ku haysa waxay noqotay markii dawladdii meeshii ka baxday
qofkii telefoon rabayna inuu tago maarkaysaye ama Kenya ama Ethiopia si uu ehelkii ula hadlo qofkii diyaarad raaci lahaana diyaaradu raaci inuu waayo maraakiib lagu safro qofkii adeeg kale u baahnaa iyo hospitaalna inuu waayo noqotay hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa $15,000 iyo internet free muddo sanad ah ku abaalmarisay ciyaartooyda iyo macallimiinta qaranka ee guushii taariikhiga ahayd ka soo hayeen tartanka daa'irta ee bariga iyo bartamaha Afrika. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan warbaahinta Dalsan Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.